Colonel Gabre waxa uu Soomaaliya ka geystay dambiyo dagaal oo ay muhiim tahay in lagu maxkamadeeyo. wuxuu hoggaan u ahaa kumanaan ciidamo Itoobiyaan ah oo soo galay dalka sanadkii 2006. 28 Diseembar 2006 markii ugu horeysay taariikhda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxa soo galay ciidamo Itoobiyaan ah kuwaas oo fariisimo kala gedisan ka samaystay gudaha iyo daafaha magaalada Muqdisho oo xilliga ahayd magaalo saxmad iyo dad badan ayaa mar qura laga dareemay dhiilo colaadeed oo looga soo horjeeday ciidankii Xabashida 29 bishii Maarch. Gabre wuxuu ciidankiisa ku amray inay magaalada isku baahiyaan oo ay awood isticmaalaan. dagaalka ayaa waxa xoogiisa uu ka qarxay wadooyinka soo gala garoonka ciyaaraha Muqdisho waxaana uu ku faafay degmooyin dhowr ah oo ku yaala koonfurta Muqdisho. muddo 3 maalmood ah dagaal socday ayaa Amnesty International warbixin ay soo saartay lagu qoray in ka badan 6,000 oo qofood inay dhinteen 600,000 oo kun oo shacab ahna ay ka barakaceen magaalada Muqdisho. gantaalada nooca loo yaqaano BM-ka ayaa guryaha shacabku degan yihiin sida roobkii ay ugu garaacayeen waxaana ciidanka Gabre uu hoggaanka u ahaa ay duqeyn aan kala soc lahayn ka geysteen Muqdisho. waxaa eedeymahaasi ribood gareeyay hay'adda Human Rights Watch. 2 Abriil xabad joojin bil ku ekayd ayaa waxaa hay'adda Bisha Cas iyo odayaal dhaqameed ka sameeyeen goobihii diriirta ka dhacday mid ururin. waxaa la qoray in haween iyo carruur guryahooda jooga la toogtay. dagaalka ayaa dib u qarxay waxaana meesha ka sii socday muddo 2 sano ah xasuuqii shacabka iyo kufsiga haweenka Soomaaliyeed loo geysanayay. waxaa dhacay dhacdooyin aan ka tirmeyn goobo ku yaala Muqdisho. sidoo kale waxaa joogto ahayd in maadada guryaha lagala baxo oo koox loo daldalo. marka laga soo tago xasuuqii iyo tacadiyada Gabre ka waday caasimadda waxa uu geysta kala faraha kula jiray siyaasadda dalka isagoo horboodayay oo qasay dawladdii xilliga uu madaxda ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed. wuxuu gacan saar la lahaa dhammaan kooxihii siyaasad ahaan isaga soo horjeeday ee Soomaalida isagoo nusqaamiyey dib u heshiisiintii laga dhex waday dawladihii dalka soo maray iyo dhinacyadii isdiidanaa. ciidanka Itoobiya oo dalka ka baxay Janwari 2009 Gabre wuu ka haray markaas wixii ka dambeeyana waxa uu saameyn siyaasadeed ku lahaa xukuumadihii dalka ka jiray balse waxaa laga waayay saaxada siyaasadda iyo shirarkii Soomaalida wixii ka dambeeyay 8 February markii dalka ay ka curatay dawlad cusub. Juun 25 sanadkan waxaa laga eriyay Gabre shaqadii igad waxaana socda qorshe ay hormuud ka tahay dawladda federaalka oo lagula xisaabtamayo xasuuqii uu ka geystay Soomaaliya oo ah kuwa qoran oo ay hay'adaha xuquuqul insaanka diiwaan geliyeen.